siyaasiga Nuur Ismaaciil Sheekh ahna musharax u taagan xilka gudoomiyaha degmada Boondheer ee gobolka Banaadir oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan faragelinta dowladda Imaaraadka Carabta ay ku hayso Soomaaliya. Nuur Ismaaciil Sheekh ayaa golayaasha dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedba ugu baaqay banaanbax ka dhan ah dowladda Imaaraadka Carabta. dowladda Imaaraadka waxay ku xadgudubtay madaxbannaanida Soomaaliya marka waxay maamul goboleed ku tilmaamtay in uu yahay dowlad madax bannaan marka shacabku waxa loo baahan yahay inay difaacdaan dowladooda shacabka inay soo baxaan inay dareenkooda muujiyaan maadaama lagu xadgudbay madaxbannaanidooda sidoo kale heshiiskii Somaliland iyo dowladda dhexe u dhaxeeyay waxay muujinaysaa in dowladda Imaaraadka ka xun tahay arintaas ayna faragelinayso si uu burburana arintaani ay ugu soo aadisay marka arintaas waa arin laga xumaado shacabka Soomaaliyeed waxa uu baaqayaa in ay isku soo baxaan dareenkooda ay muujiyaan maadaama lagu xadgudbay madaxbannaanidooda ayna difaacdaan dalkooda sidoo kale dalku wuxuu leeyahay baarlamaan xildhibaanada sharafta leh waxa uu baaqayaa in ay maanta dalkooda ay badbaadsadaan ayna u istaagaan go'aan cadna ay ka qaataan arinta Imaaraadka ee ku saabsan degada Berbera. dhinaca kale siyaasi Nuur Ismaaciil Sheekh ahna musharax u taagan xilka gudoomiyaha degmada Boondheer ee gobolka Banaadir ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay inay isgargaaraan oo ay isu fidiyaan gurmad degdeg ah. sidoo kale waxaan rabaa inaan baaq u diro baaq qaasal mida waxaan rabaa inaan u diro ummadda Soomaaliyeed waxa jira dhibaatooyin badan dad barakacayaal ayaa dhibaataysan biyo la'aan ayaa soo darastay meel Muqdisho u jirto 50 kilomitir ayaa biyo la'aan dad ugu dhimanayaan marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay iscaawiya maanta oo isku gurmada maanta waa maanta loo baahan yahay inaad idinka isku istaagtaan iscaawisiin isgarab istaagtiin marka waxaan leeyahay isgarab istaaga oo isku istaaga deegaano badan ayaa jiro oo biyo la'aan ay ka jirto tusaale ahaan raayacelo kale deegaano kale 50 kilomitir Muqdisho u jiro shabeellooyinka labada shabeelle kamida deegaanada ay ku nool yihiin barakacayaal sidoo kale dhibaatooyin ayaa ka taagan marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed isku tashada isgarab istaaga. Nuur Ismaaciil Sheekh ayaa ah siyaasi Soomaaliyeed isla markaasina u taagan xilka gudoomiyaha degmada Boondheer ee gobolka Banaadir. Bile Mire Maxamed SBS magaalada Muqdisho.